Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa idin salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee daawan doonta videogan meel kasta oo dunida aad ka joogtaan. Maanta waxaa idinla wadaagi doonaa insha Allah deeq waxbarasho oo master program ah oo hal sano ah, kaasoo loogu talagalay dhalinta qaaradda Afrika ee digriga haysato. Marka waxaa iska kaashanaya programkan Master Card Foundation, hay-adda la dhaho, iyo University of Oxford ee waddanka Ingiriiska. Waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu qaalisan caalamka. Waa scholarship ka faa'iideysan doonto arday gaarayso 400 oo arday ee kasoo jeeda qaaradda. Insha Allah waxaan isku dayi doonaa bisha January aan ku jirno 2025 wixii ka bilowdo inaan page-kani kusoo publish gareyn doono insha Allah dhammaan scholarship-yada. Inta badan waxay baxaan scholarship-yada sanadka markuu cusub yahay ilaa bisha 6. Marka waxaan isku dayi doonaa insha Allah inaan idinla wadaago dhammaan scholarship-yada. Saaxiibkaaga la wadaag, walaalkaaga Soomaaliga ah la wadaag, walaashaada la wadaag, programkaas u share garee si ay ugu faa'iideystaan insha Allah. Aad baad mahadsantahay. Programkani waa fully funded way. Qarashkiisa oo dhan hay-adda iyo jaamacadda ayaa bixin doona insha Allah. Programkani wuxuu iska kaashatay saan idinku soo sheegay hore Master Card Foundation iyo jaamacadda Oxford University. Waxaana loogu talagalay dhalinta qaaradda Afrika kasoo jeedo oo ay digriga wadato oo danaynayso inay research-yada ay sameeyaan. Waxaa jira program la dhaho AFOX, ma aqaano Soomaali inuu ku jiro in kale, laakiin waa program iskaashi ka dhexeeyo jaamacadda Oxford iyo jaamacado iyo institutiono badan oo qaaradda Afrika cilmi baaris sameeyo. Marka programkaas ayuu xiriir la leeyahay sidoo kale. Wuxuu focus ka saarayaa kow in ardayga laga bixiyo dhammaan wixii qarash ah uu u baahnaan lahaa sanadkaas uu baranayo jaamacadda. Sidoo kale hogaaminta, hal abuurka ganacsiga, iyo weliba tactical skillska, xirfadaha farsamada ayuu focus ka saari doonaa insha Allah into period of service. Waa eray luqadaha Afrikaanka kale kasoo jeeda weeye, laakiin ujeed ahaan waa fursad loogu talagalay ardayda qalinjabiyey inay ugu shaqeeyaan mashaariicda waxtarka u leh qaaradda amase saameynta ku leh qaaradda Afrika ayaa loogu talagalay programkan. Academic focus area meelaha uu diiradda saari doono waxaa ka mid ah sida aan hore idinku soo sheegay waa hal sano. Programka masterka waa hal sano. Master weeye programka, jaamacadda bixinaysana waa Oxford sida aan hore idinku soo sheegay. Ardayda caafimaadka fursad ayay ka heli karaan. Kuwa agriculture-ka amba cuntada baranaya sidoo kale fursad ayaa ka heli karaan halka. Engineering-ta sida biyaha iyo weliba solar system-ka iyaguna way ka faa'iideysan karaan. Governance and public policy, siyaasadda iyo maamulka dowladaha sidoo kale ardayda baranayso administration wax loo yaqaano iyagana fursadda halkan way taashaan. Kuwa business-ka iyaguna way baran karaan. Iyo sidoo kale waxaa lagu saleeyay ajandaha 2063 in ay gaadho qaaradda Afrika loo baahan yahay, kaasoo iska kaashanayaan midowda Afrika iyo qaramada midoobay. Waxaa loo yaqaano Sustainable Development Goals. Wuxuu qoseeyaa kow healthy people, dadka inay wada heli karaan access caafimaad, inay wada heli karaan bulsho isdhexgasho. Sidoo kale innovation, hal abuur in lala imaado. Hal abuur kuma imaanaya goor wax la bartay ayuu qofku fikiraya, hal abuur uu keenay. Laakiin hadduusan wax baranin hal abuur ma keeni karo. Marka sidoo kale halkaas ayuu qoseeyaa programkani. Shuruudaha qofka soo apply gareyn karo programkan waxaa ka mid ah kow female, dhammaan dumarka haysto ama gabdhaha haysto degree way soo apply gareyn karaan. Labo, qofka qaxootiga ah iyo qofka barakaca ah isagana wuu soo apply. Qofka kale apply gareyn karo programkan oo saddexaad waxaa ka mid ah accessibility needs. Waa cilmi baarayaasha qaba baahiyaha gaarka ah oo rabaan inay cilmi baaris sameeyaan, dad boos ah mise disability wax loo yaqaano, haddana rabaan in waxbarasho shakhsi ama qaadaan degree markay dhameystaan master research ay sameeyaan, kuwaasna soo apply gareyn karaan. Idinkaas ayuu leeyahay isaguna. See loo apply gareeyaa? Hoos baan u geli doonaa insha Allah apply gareyntiisa, laakiin waxaad ogaataa kow taariikhdan 7 bisha waxa walba uu qoseeyo mise maadooyinka qoseeyo koorsooyinka qoseeyo humanitiska 7 bishan ayuu ku egyahay.
marka waa inaad si degdeg u apply garaysaa aadna ula share garaysaa walaalkaaga mise walaashada Soomaaliya qofka daawanayo programkan 8 bisha January xisaabta physics-ka iyo koorsooyinka sayniska ah caafimaadka inta oo dhan iyadana bishan 8 marka si degdeg ah inaad apply garaysid okay ayaan kaa codsanaya qofkii soo gaaro videogan inuu u share gareeyo walaalkiisa 9 bisha sidoo kale social science-ka koorsooyinka la xiriiro 28 other social science okay 29 bishana waa law iyo maadooyinka kale koorsooyinka education waxbarashada la xiriiro ayaa iyaguna la apply gareynaya insha Allah ayuu ka yahay deadline weeye marka interviewguna waa February weeye July bisha 7aadna okay qofka guuleystay okay ayaa informationka iyo wax walba oo quseeyo scholarshipka lala soo wada hadaba halkeen ka apply gareyn karaa waxaad gashaa contact informationka halka gal Oxford official website meesha waa qoran tahay click ku dheh computerkaaga marka kadib markuu ku soo baxo page-kani Oxford ku qoran tahay University of Oxford ku qoran tahay hoos u deg saddexaad how to apply meesha ku qoran tahay ayaa tagi hoos waxa ku qoran marka halkani graduate admission portal waa ku qoran halkaasaad ku dhufan haddaba page-kan marka aad ku soo muuqdo gacantaada midig meesha u dambeysa graduate access ku qoran tahay scholarship aad tagi and funding aad ku dhufan hoos baad u degi okay next baad diyaar next marka dhacdo hoos baad u degi mar labaad waxaad raadina marka meel ay ku qoran tahay Mastercard Foundation sorry waan dhaafay FOX scholarship marka halka waxaa ku access gareyn kartaa okay full eligibility-ga iyo qaabkaad ku apply gareyn kartid okay halkaad geli marka jaamacadda ku soo okay waxaa ku soo baxaya marka jaamacaddii okay dhismaheeda then waxaan waa student life okay marka jaamacadda okay ardayda qaabkay u nool yihiin koorsooyinkii college-kii waxaas way aan sababta marka apply haga marka application okay guide application guide marka dhacdo then start application halkaas ka bilaabay marka okay marka waa application guideline marka meesha waa page waxa laga apply gareynaa soo gashay marka inta kala dee waad fahmi kartaa halkan oo dhan okay application-ka sida wax loo apply gareynaa waa taqaanaa marka insha Allah daaliri aan rajeynayaa inaad la wadaagto information-kan mise deeqdan waxbarasho walaalkaaga Soomaaliyeed okay sidoo kale waxaad ka heli doontaa insha Allah wixii hadda laga bilaabo wax walba oo scholarship ah uu ka faa'iideysan karo qof kasta Soomaaliya inaad soo geliyo page-kan insha Allah aad baad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.